ayaga baxameed dhulkii barakada lahaa ayaa kugu beegayo ila boqdaramo oda boqotay xidhe mashimawle walaa salaaniga geeya. Hi guys, so dhawaada anada muuqaalka la duu muuqaalku soo gaaro subscribe like share comment-ga naga baqaylin walaalkayga ama walaasheeda qaaliga halka naga daawanaysa waa muuqaal bixiya Maxamed Nuur Channel official YouTube-keena barta aan YouTube ku leenahay ya Ramadan Kareem allana dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogan waxaan rajaynayaa wanaag iyo caafimaad maanta maxaan ka hadlaynaa waa arrimaha caafimaadka iyo soonka dad waxaa jiro oo sooman daawo qaata dad sokor qaba dad dhiikar qaba dad daawada kansarka qaato dad waxaa jiro cagaarshow qabo intaas ayaan ka hadlaynaa maanta marka qaabkee ugu habboon oo ama wacyigelin loo siin karaa ama taliyo tusaale wanaagsan loo siin karaa soonka waa raxmad nimca caafimaad wanaag marti waaye martida ugu qiimaha badan waaye si fiican soo dhaweey marti soorkiisaan ku jirnaa inaan si fiican u maamuusno si qayim leh si asluweysan inaan u soornaayaan jecelnahay kuwii laga aqbalo acmaashooda intii ay ilaahay hortiisa la tageen kuwii laga aqbalo oo loo saxo tigta loo siiyo allah naga dhigo ya soonkii salaada allah naga aqbalo wadankeena bashbashi barwaaqo nimco ilaah nooga dhigo dadka waxaystow walaalahaaga baahan caawi maanta hantidaada kuma raacayso dharkaada kuma raacayaan baawartaada kuma raacayso waxa ka horey keli waa keedka aad dhigatay waa waxaa baxsata gacantaada ee baxsata waay adduunka intaa joogto waxaa baxsata waay haddaa dhahdid gurigeena waxaan ku cunayaa costato arosto prosto iyo wax kastaan ku cunayaa cabitaanada sharaabada nooca kala duwan qofka dariskaagana uu haysan galabtina wax ku agshiilanaysid ka war soo qof ka raacimays oo qof ka raacayso markuu isku day inaad walaalahaaga dhibaataysan caawisid intaasna waa marka waxaa wanday dadka sokorta qaba markaas sokor qabtid aadna sooman tahay waxaa badanaa dhaco qofka inay sokorta ka dhacdo soo sooman ay sokorta ka dhacdo maxaa samayn karaa marka qofkaas muxuusaa oo sokortiisa ku soo celin karaa mar alla markuu habeenkii soo xuuranayo ayuu wuxuu sameynayaa xabad moos ama 2-3 xabo oo timir ah inuu isticmaalo 3 xabo oo timir ah sidaas marka uu qofka sokortiisa mar walba ku maanadgaran karaa ku ilaalin karaa soonkana isaaba iska caafimaad daawo waxaa laga yaabaa sokortaas badanaa kicitaankii ay kicisay hay mar walba tagaysay inuu ilaahay hoos uga dhigo ilaahayna ka caafiyo inta sokor qabto inta cudur qabto ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtana caafimaadka loo siyaadiyo war halka anaga daawanaysaan waa channelka Maxamed Nuur Channel officially please haduu muuqaalku soo gaaro subscribe like share comment-ga naga baqaylin walaalkayga ama walaasheeda qaariga sidoo kale dadka dhiikarka qabo gabdhaha afurka karina waxaan leeyahay war hadduu aabbaha yahay hadduu abtiga yahay hadduu hooyada yahay hadday eedada tahay hadduu walaalkaaga yahay please
cuntada aad karinaysid cusbada ama waxyaabaha dhanaanka ah aad ku badinaysiin maxaa lagu daray ka ilaali waa in baryaaya ka ilaaliya sokorta qofka qaba ama qofka dhiigkarta qabo labadaba waxa dhibay ka ilaali qofka dhiigkarka qaba wuxuu sameyn karaa asana markuu suxurnayo biyo badan soo cusbada markaas kiliyaha uu sameynaa masa iska dhiig wareega biyaha marka kiliyaha ay sameynayaan sida cusbadaas badana jirkiisa marba soo galayso qasmato ayaa wuxuu cabayaa biyo badan koob caanaha cabo mar walba saasa sameeyo hana iska cabir mar walba saacad soo iska cabir karaa kan sokorta wax la qitaa mugta kan laakiin iska cabir karaa mar walba geegin iska cabir pressure iska cabiro sidoo wadnihi soo soo dhicin hadduu wadnaha badan hoos soo dhacayaan wax yar kafee markuu afuray kafee yar dadku xidhan kafeega wax ma kafeega circulation system waxaa marka dadka kafeega waxay dhahaan kafee maya kafee ma ahan kafeega waxa waaye caafimaadku waxna ka maridi karo waxna kuma soo kordhin karo walow uu wili kafeega wax badan oo faa'iido u leeyahay habdhiska dhiig wareega ay ka qayb qaataa kafeega wuxuu ka hortagaa cudurrada kansarka caloosha ku dhici lahaa ayuu ka hortagaa mar walba marka kafeega wax dhib ma keenayo gaxwada daacabtidno kale wax dhib ma keenayo dadkan waxay ka iska dhadhinaan kafeega wuxuu leeyahay wadna garaac wadna kafeega mar walba qofka circulation dhiiggiisa oo ka qayb qaataa caawqo ku dhici lahaa ka hortagaa waa faa'iido la soo ogaado sidoo kale dhageeraha la isticmaalo ya badana laakiin dadka waxaa jira dad oo gaas qabo waxay ku dhahayaan qaraha biyaha cabitaanka qaraha ma cabi karo adi sokor maxaa ku falaysaa cunto badana maxaa cunee bishii cuntada la yareeyay waayo cuntada la iska yareeyo la dhaho waayo bishii raalaadaya guriga agtiisa waxaa la gargaraacayaa kuwa dariskeena guri dhisanaya gaw ku hayaan marka raalaadaya أنا مكرف مس مالنا ولا على جدا دربي جوري أسكاك فديا وحمناعه يعني أنت يوتيوب كوا كم شغلك هذا يوتيوب وأنسو جوست بليز سبسكرايب تيسارة موقعك دكسو جار مال سرا إيجارسي ولا ليه قاليا شرفي كرامة دي هيا موقعك دكسو جارو مال سرا إيجارسي مرربا مركا dadka waxa arkaysaa cuntada guriga waxa la soo dhowaa guriga waxay soo dhawanayaan ama soo tuwayaan laba baabuur oo cunto maxaa saddex calool afar calool ma yeelnaa qofka u yeelna guriga joogo markasto maya gabdhahan ayaa lagu dhibin gabadha sambuus inta ku sameeyay inta canjeero ku duwaysa inta malax ku duway inta bur ku duway digs termuuskaas cabitaan waa saddex termuus cabitaan kala nooc kale sokortiya badan waay cuntada jirka in laga bixi raawo wasaqda jirka 12 bilow wasaq jirka soo galaysa in laga saara rabaawo cuntada ina iska yirisid al rabaa cuntada ina iska yirisid al rabaa aniga dar brisiro cadana iyo cadiro hilib ina cuna mas'adiro malayna cuna laga yaabo maskoob biya caafiga ina caawo habeenkina koob caana ama saddex bitimir ina ku soo iyo koob shaah waaya caafimaad waa soon caloosha ina nadiifiyaan rabaawo hay marka kiintaal badar ma cunaa dada 8 sax ma cunayaan waxaas yaa rabo ma fiicno caafimaadka ada jiris